السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبي soo dhawaada oo walaashin Aisha channelkan naga daawansana waa Aisha Mataan. Waxaan rajeynayaa inaad wada fiican tihiin, inaad caafimaad qabtaan. Alxamdulillah anagoo idin fiican nahay. Saaka waxaa sameyn duwanaynaa rootiin insha Allah. Waxaa ka bilaabanay quraacdeeni, canjeeradeeni baa soo duwanay. Kadib waxaa sameysanaynaa canjeerada markaan soo dhameysano waxaa sameysanaynaa beer yar beerka iyo basasha iyo barbaroonigana halkaas diyaar ugu yihiin. Fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe noo saar, videoga like noo dheh. Haddaa hore noo joogtayna iyo haddaad nagu cusub tahay aad baan idinka mahadcelinayaa daawashadiina iyo waqtigiina quruxda badan. Like-tiinu dhiirigelin bay noo tahay, sidoo kale subscribe-tiinu waxaynu saaranayaa waddadii aynu halkan ku gaari lahayn weli kun inooma buuxsamin. Insha Allah waxaan rajeynayaa haddii aad nagu cusub tahay inaad subscribe noo saartid, videogana aad like noo saarteen dhammaantiin aad baa u mahadsantihiin. quraacdeena markaa soo sameysanay oo waqti barqa ay noo tahay waxaa sameysanaynaa skin care yar baa sameysanaynaa wajiga. Halkaas waxaa kusoo shubay qaado malab ah, waxaa ku darsanayaa qaado barkeed oo huruud ah. Intaa quraan isticmaalayaa. intaa kadib waqtiga waxaa la gaaray waqtiga qadada. Qadadana maanta waxay ahayd bariis dhex karis ah. Halkaas cabitaan baa ku shiidanaynaa. Cabitaankaas wuxuu ka kooban yahay waa mango xaliib, waa cambe. Waxaa ku soo daraynaa waxaa ku shubanay mashiinkii waxaa ku darsanay 3 qaado oo caano boore ah. Sidoo kale waxaa ku daraynaa sonkor yar aan badnayn. Intaa kadib waa soo shiidanaynaa. Saanu diyaar inoogu yahay cambeeni. waxaa la gaaray waqtiga cashada. Halkan waxaa ku haysanaa digaag shiid ah aynu soo jarjarnay si dhuudhuuban baa u soo jarjarnay waana soo dhaqnay. Kadib waxaa ku darsanaynaa bahaaraad wixii aad haysatid oo aad isticmaalaysid baad ku darsanaysaa filfil, xawaash burbuur, chicken masala, kamsar iyo toon aan isku soo tumnay. Intaa kadib iyo milix. Intaa kadib way soo dhex gelinaysaa sidoo kale basbaas casi ama basbaas guduud. Si fiican marka isku soo dhex gashano oo aynu si fiican isku dhex gelinay aniga waxaa isticmaalaynaa caano garoora yoogar haddii aan haysan garoorkeena caadiga anigu waxaa isticmaalayaa garoorkeena caadiga. Kadib si fiican korta isku dhex gelino waa dabooleynaa cabbaar buu noo oleyaa si ay lafta uga gasho dhandhanaankii iyo wixii loo baahnaa. kadib maqli baa soo qaadanay, saliid baa ku soo shubanaynaa. Waxaa ku soo darsanay basashii aynu soo jarjaranay. Cabaar baa basasha shiilaynaa guduudinaynaa. Kadib waxaa ku darsanaynaa chicken-kii ama digaaggii oo isku soo keen dhex galay. Cabaar muddo inoo yaalay. Caanihii garoorka ahaa, bahaaraadkii, milixdii, wixii basbaaskii, wixii ba is soo dhex galeen oo kaale araga.
waxaan ku soo darsanay digaagii cabaar baa shiilaynaa xoogaa biyo dhalinayaa biyahaas oo kasoo gursiinaynaa waa isku soo laabanaynaa insha allah. dheecaankii iyo biyuhu uu dhaliyay wuu soo gursaday saasuu qallayl inoogu yahay maadaama aynu ka samaysayno shawarmo camal oo soo qalajinay waa kana isagoo diyaarinoo kadib waxaa soo qaadanay burkeenu u diyaarsanay waxaas marinaynaa soos yar sooskaas wuxuu ka samaysan yahay caano saliid yar toon iyo liin dhanaan intaas isku soo shiidnay kaala arag rasiin buu ku noqonayaa waana wax soos yar oo macaan aad u macaan kadib saasaan kusoo wada samaysanaynaa insha allah.